noloshu waxay bartay inuu jiro qof kugu jecel sida aad tahay iyo si kastoo aad ahaydba intaadan bedelin nafsadaada ka hor iyo ka hor intaadan bedelin shakhsiyadaadii hore ama aadan bedelin dabeecadahaagii noloshu waxay bartay inuu jiro qof kugu jecel cayb kastoo aad leedahay misana samaynaya waxyaabo aanan suurtagal ahayn keliya si uu wehelkaaga u ahaado intaasoo idil waxaa ka daran inuu qofkaasi aqbalayo dhammaan ficiladaada si uu agtaada u joogo qofkaasina wuxuu samaynayaa ficil kasta si uu kuu arko keliya adigoo dhoola caddaynaya noloshu waxay bartay in kuwaasi aanan la helaynin ilaa dhif mooye bal waxaa macquula inaadan helin shakhsi noocaasi ah haddii aad hesho si fiican ugu dheg oo u qabso u dhowrna sida macdanta teeda ugu qaalisan oo kale maxaa yeelay ma heli doontid shakhsi sidaad adigu u jeceshahay isaguna kuu jecel waa dhif oo zamankani way yaraadeen dadkii lahaa qalbiga saafiga ah sidoo kale noloshu waxay bartay inuu jiro qof haddaad samayso kun wanaag arkaya keliya hal qalad oo kaa dhacay ficiladaadoo idilna ka dhex baaraya qalad iyo xumaan haddaba qofkaasi oo kale wakhti ha ku dhumin hadalkana ha ku badin eeddaa noloshaada ka baxee adiguna aad ka raysatid xumaanihiise ugu dambayn qof kasta waxaa ku waajiba inuu ogaado labadaasi noocee dadka ka mid a kadibna kan mudan in la xafida kan kalena fasax